shaqaalahan cusub oo ay ka mid noqon doonaan shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta tababar loogu furay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ay tiradoodu gaaraysaa 15 ruux 10 ka mid ah ay yihiin rag halka 5 kalena ay yihiin dumar muddada tababarkani soconayo ayaa waxa ay ku baran doonaan shaqaalaha qaabka loo diyaarinayo riboodka iyo howlaha ay qabato wasaaradda iyo garsoorka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana munaasabada furitaanka tababarkani ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya injineer Jibriil Sheekh Luqmaan isagoona sheegay in shaqaalahan cusub lagu soo xulay aqoon iyo kartido shaqaala oo diirayaan tiradayo tumishan qofood shaqaaladaas oo in shaqaalaha UN-ka shaqaaladaas way ballan qaaday kooda bisha May ee qaadani way baan la qaaday imtixaan marsi su'aalato yani shacabka la garsooro cadaalad ayaan laga shaqaalaysiin maadaama wasaaraddiina magaca cadaalad ee wada shacabkii way baa ku aansanaysa cadaalad intii yani shil saaran imtixaan laga shil saaray tumishan taas qofood saasaha ka baahan marka adda ujeedka geedka yani oo yo lagu weeri way baahaytay sidii oo seminar lagu wada lahaay oo yani waajibaadkii iyo yani oo la shaqaalay oo seminar oo qorsi tilsi wali la kafadaw wali waajib soo intii yani la sheega la fahansi oo la tawbara saasita ujeedka seminarku saasahayti way barajeen yani waxyaabaha oo yani oo faa'iideysto doona seminarku oo yani kamid ah sidii report loo qoro lahay oo report lagu gudbiyo lahay oo yani wasaaradda lagu gudbiyo lahay iyo UN iyo deeqbixiyaasha donors yani oo yani wasaaradda fangareeyo lagu gudbiyo lahay ee kamid ah waxyaabaha ay ku barado doonaan iyo walba kamid ah waxyaabaha ay ku barado doonaan waliba waajib soo oo ka garsoor ahaan iyo cadaalad ahaan oo laga ka baahan yahay shacabka oo wadaan tababarkani loo furay shaqaalaha cusub ee ka mid noqon doona shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah shaqaalihii ugu horeysay ee wasaaradda ay qaadato tani markii la aasaasay wasaaradda garsoorka ee maamulka Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Shacab Baydhabo.